Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalka Hikaadshi. Maanta waxaan qaadanaynaa cashar English. Casharkani wuxuu ku xiran yahay casharkii hore ee ahaa family ama qoyska. Casharkan waxaa la yiraahdaa ama ciwaan u ah introducing family members. Members waa xubno, familyna hore baan usoo qaadanay waa qoys, introducingna waa isbarid. Adigu baa waxa isbaraysaa qaybo familygaaga ka mid ah ayaa waxaa baraysaa qaybo kale oo familga ka mid ah, ama waxaad baraysaa dad kale. Adigu say doonto ha ahaatee, ama adigu dad taqaanay bar ama dadaada aqoon bar, laakiinse mar walba muhiimadu waxa weeye adiga oo waxa weeye isbaraya qayb ka mid ah familygaaga iyo qof kale. Qofkaas ama ha ka mid ahaado familga ama yuusan ka mid ahaan. Meesha aad ka daawanaysa waa Hikaadshi channel. Alright, so waxaan kaa rajeynaynaa inta aan casharka bilaabin inaad kanaalka kusoo biidid oo aad qayb ka noqotid, sababtoo ah duruustani waxay noqon doontaa mid taxano ah oo aan kala go' lahayn. Insha Allah wax badanna luqadda ama waxa weeye barashada luqadda Englishka kaa tari doonta haddii ay beedmo. Alright, aan marka casharka toos u kalno. Introducing family members. Waxaan niri introducing waa isbarid, familyna waa qoys, membersna waxa weeye waa xubnaha qoyska. Sida macnaha isku bartid dad kale u bartid waxa weeye sidoo kale waxa weeye marka waxaan rabnaa inaan dib ugu laabano macnayaashii erayadii aan soo baranay qayb ka mid ah si ay noogu sahlanaato casharka inaan si fiican u guda galno. Father waxaan niri waa aab. Halkan marka fiiris erayga waxa ku hor qoran macnihiisii oo Soomaali ah. Okay, this is waa eraygii oo English ah. Kana waxa weeye waa eraygii oo macnihiisii oo Soomaali ah. So father waxaan niri waa aab. Mother waxaan niri waa hooyo. Brother waxaan niri waa walaalka, waa midka wiilka. Sister waa walaasha. Alright, daughter waa gabadha aad dhashay. Son waa wiilka aad dhashay. Aunt waa habaryar ama eedan. Midkay doontay noqon kartaa markii yacni hadalka yacni word lagu daro ayaa waxa la ogaanayaa macnaha dhabta ee laga leeyahay. Alright, so kana waa uncle, waa abti ama adeer. Isagana sidoo kale waxaa lagu ogaan karaa qaabka loo dhadhansanayo macnihiisa marka uu word ku dhex jiro. Niece waxaan niri waa gabadha aad abtiga u tahay ama adeerka u tahay. Alright, nephewna waa wiilka adeerka u tahay ama abtiga u tahay. Casharkeena maanta aan guda galno marka introducing family members, isbaridda xubnaha qoyska. Alright, okay, midka koowaad numberaan u sameeyay 1 2 3 4 5 si ay kugu sahlanaato inaa waxa weeye meesha aan ka hadlano iyo sentence-ka ama word aan akhriyano aad si fiican ula socotid. Alright, kan koowaad, my father's name is Ali. Alright, aabahay magaciisu waxaan soo sheegnay maay inay tahay casharkan ka horeeyay oo aan casharkan muhiim buu u yahay. Waxaa ku jiray laba waxyaabood oo hadda sentence-ka ama word ugu horeeyay ee casharkeena maanta ku jira. My oo ah waxayga iyo father's oo apostrophe baan kusoo sheegnay tan oo ah waxa qofku uu leeyahay. Marka magaciisa lagu daro waxa ay tusinaysaa waxaan soo socda inuu qofkaasi leeyahay ama shaygaasi leeyahay. Marka sentence-ka ugu horeeya ama word ugu horeysa waxay leedahay my father's name, magaca aabahay, is Ali, waa Ali. So name waa magac, father waa aabe, mine waa waxayga. Marka my father's name, magaca aabahay, is Ali. Alright, marka Ali wax kasta ku bedeli karaa, Cabdi baa ku bedeli karaa, Jaamac baa ku bedeli karaa, Cabdullaahi baa ku bedeli karaa, Faarax baa ku bedeli karaa. Adiga ayay ku taala. Alright, laakiinse waxaa rabaa marka intaad leedahay my father's inaad ka hadlaysid. Marka my father's haddaa meesha soo geshid waa ina mar walba qof nin ah meesha keentaa, sababtoo ah qof dumara ma dhigi kadib marnaba. Alright, so word labaad waxay leedahay my mother's name is Cambaro. My mother's name, magaca hooyaday, is Cambaro, waa Cambaro. Alright, marka waxa kaliya ay ku kala duwan yihiin waxa weeye my father's name iyo my mother's name. Mother iyo father bay ku kala duwan yihiin. Sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin magaca ugu dambeeya oo midna Cambaro yahay midna Cali yahay. Sidaa daraadeed my mother's name is Cambaro, is Caasho,
waxaad doontid baa dhihi kardhaa aday ku taallaa hooyadaa magaceedaa sheegaysaa markaa intaad tiraahdo. Okay, weedha saddexaad waxay leedahay my family consists of 7 siblings. qoyskaygu wuxuu ka kooban yahay my family qoyskaygu consists wuxuu ka kooban yahay ama consists of inta badan way israacdaay wuxuu ka kooban yahay 7 siblings caruur 7 caruur qoyskaygu ka kooban yahay. adiga tusaale ahaan kale wiil baa tahay ama gabar baa tahay waxaad rabtaa inaad tiraahdo waxa ay la dhashay 7 caruur marka waa tan my family consists of 7 siblings. qoyskaygu wuxuu ka kooban yahay 7 caruur. Right, our eldest brother's name is Muhammad. walaalkayaga our waa waxyaga horey baan usoo sheegnay casharka horreeyay baan soo baranay casharkii ka horeeyay hubaashi aad ayuu muhiim ugu yahay baan nidhi casharkan. marka wakaa maanta haddii aad casharka hore soo akhrisan wax badan ayaad ka dhacsan tahay. marka waxaan ku rajaynayaa inta aad casharkan guda gelin ama aad waxa weeye isku dayin inaad baratid in casharkii ka horeeyay aad soo akhristid. marka our eldest ka noogu weyn brother's name magaca walaalkayaga noogu dhow weyn magaca walaalkayaga noogu weyn waxaan yidhahdaa Muhammad. our eldest waa ka noogu weyn inagu noogu weyn yahay. brother's name magaca walaalkay walaalkayaga noogu weyn magaciisu waxa weeye Muhammad weeye. our eldest sister's name walaashayada gabadha ah ee noogu weyn magaceedu waa Safiyo. okay, where did it happen? my father abahay is a senior is a senior citizen waa macnaha wadani qadiim ah. senior waxa la yiraahdaa wax macnaha heer sare oo macnaha hore u jiray. tusaale ahaan kale ardada oo kale jaamacadda oo kale qaybna waxa la yiraahdaa senior qaybna waxa la yiraahdaa junior. marka junior waxa laga wadaa sanadka koowaad kan labaad ka saddexaad meelahaas kale. laakiin sanadka ugu dambeeya ama ka shanaad noqon kara ama kan afraad noqon kara ardadaas waxa la yiraahdaa senior students. marka ardaygu wuxuu dhahay I'm senior student. okay, mataqaana inteeba jaamacadda xagee maraysaa marka tiraahdo wuxuu ku leeyahay senior baa wuxuu ka wadaa macnaha ardaygii meeshii ugu dambeysay maray. marka senior laakiin halkan waxaa looga jeeda abahay waa wadani hore wey. ninkan waa nin soo jabay waa nin hore wey waa wadani hore senior. my father is a senior citizen. abahay waa wadani qadiim ah. alright, waa nin wadanka wax badan kusoo noolaayo wax badan waxa weeye usoo joogay. weedha toddobaad I have one nephew. waxaan haystaa hal wiil oo aan abti u ahay baan iska dhahanaa maanta sababtoo ah inuu adeer u nahay inaan abti u nahay midkaan doona waxa weeye lama kala yaqaan. marka waxay haystaa I have one nephew and 2 nieces. waxaan haystaa hal wiil oo aan adeer u ahay ama abti u ahay iyo 2 gabdhood oo aan abti u ahay ama adeer u ahay. aday ku taalaasaa u safrinaysa. okay, 8 I look like my dad. aabahay dad waxaan soo sheegnay inay tahay aabahay. casharkii dhaweyto oo macnaha maalintii dhaweyto aan baranay kii kasii horreeyay oo familiga ahaa waa qoyska qaybtiisa koowaad ayaan waxaan kusoo baranay dad in sidoo kale loo isticmaali karo aabe. right, I look like waxaan u ekahay my dad. halka waxaa ku bedeli kadhaa waxaa doonta I look like my brother baa ku bedeli kadhaa I look like my sister walaashii baan u ekahay I look like my mother hooyadii baan u ekahay waxaan doontin baa dhihi kadhaa. okay, weli casharkii baa socda qaybta 9aad weedha 9aad baan leeyahay we both have blue eyes and black hair. we both labadayaduba have waxaan leenahay ama haysanaa ama nagu yaal blue eyes indha maxaa cirka u eg oo bluega iyo black hair tima madow. okay, dunida dadka ugu badan waxay leeyihiin tima madow. dad waxaa jira tima cad kuwa tima guduudan baa jira. okay, kuwa tima waxa weeye boroborow ala baa jira oo macnaa caddaanna ahayn madowna aan ahayn. alright, weedha 10aad marka weedha 9aad waxa weeye we both have waxaan labadayadu leenahay blue eyes indha bluega iyo black hair iyo tima madow. weedha 10aad I am very different from my sister. aniga aad ayaan uga duwanahay. I am anigu very different waxaan aad uga duwanahay from my sister walaashay. seebaa uga duwan tahay oo kale
she is talkative aad ayay u hadal badan tahay waa qof macnaha hadal ilaahay u dhiibayo markii ay qabsato waxa weeye mikrofoonka loogama daba hadlo alright and does not like mana jecla to wait inay sugto for anything waxba ma sugi karo yacni waxay qabtaa kadeed bay qabtaa yacni qoftani wayna hadal badan tahay waxna ma sugi karo oo dulqaadka ku yar markii alright but laakiinse I am anigu very shy waxaan ahay qof aad u xishood badan oo macnaha hadalkaygu ma badna weeye oo tusaale ahaan kale sababta wuxuu yiri walaashu wuxuu ku sheegay inay hadal badan tahay isagu laakiin wuxuu isku sheegay inuu yahay qof xishood badan daaminays waxa weeye dadka aadka u xishoodka badani waa dadka aadka u hadalka yar yacni ma hadlaan ama hadday hadlaanba waxay ka hadlaan wax lagama maarmaan alright so I am anigu very different but laakiin I am anigu very shy aad ayaan u xishood badnahay and patient aad ayaana u dulqaad badana iyadu waxba ma sugi karin anigana aad ayaan u dulqaad badanahayo wixii aan damcay inaan waxa weeye sugo dee sanadaan sugi karaya alright marka dulqaadka igu badan anigana saasaan uga duwanahay walaashay wey okay sentenceska ama words copy tobran my sister walaashay likes waxay jeceshahay staying at home guriga inay joogto staying at home waa guri joogid wey likesna waxay jeceshahay wey my sister walaashay likes waxay jeceshahay staying at home inay guriga joogto and cooking iyo sidoo kale inay wax kariso labadaasay jeceshahay wada 12 my brother walaalkay enjoys wuxuu ku raaxaystaa ama waxa weeye uu yacni aad u jecel yahay playing sports inuu wax ciyaaraha inuu sameeyo banooniga kubadda gacanta kubadda lugta midda miiska waxyaalahaas adigu wuxuu doona ciyaar noocay doonta ha ahaatee ciyaaruhu jecel yahay asaguna but laakiinse I anigu prefer waxaan doorbididdu waxay imaataa markii wax qof kala sameeyo ama waxa weeye ama laba waxyaalood la isku barbardhigo oo aad tiraahdo warkan waxaan ka doorbidayaa kan oo kale marka prefer waxaan ka macnaha doorbidaa reading akhrinta and watching movies iyo filimaanta oo daawado asaga muxuu jecel yahay inuu wax ciyaaro anigana inaan wax akhriyo waxna daawado filimaantana daawado so but laakiinse I prefer waxaan doorbidaa reading akhrinta and watching movies iyo daawashada watching waa daawasho moviesna waa filimaanta ama films baa meesha ku bedeli karaa it's up to you adiga ayay ku taala wixii halka ku bedeli lahayd alright word saddextana we don't see each other very often inta badan we don't see ma aragno each other macnaha midka kale ma arko very often badana midka kale ma arko but I try waxaan isku dayaa laakiinse to call my parents inaan waalidkay waco once a day maalintiiba hal mar inaan waco qofkani waxaa dhici karta inuu joogo meel ka baxsan ama meel ka fog waalidkiis mar walbana waqti uma heli karo inuu waqti badan la hadlo laakiinse maalin walba wuxuu siiyaa waqtigiisa in yar oo ka mid ah si uu waalidkiis ula hadlo marka wuxuu leeyahay macnaha waalidka isma arki karno oo waa kala fognahay laakiinse maalin walba waa waca we don't see each other very often inta badan isma aragno ama isma arki karno but I try laakiinse waxaan anigu isku dayaa to call inaan waco oo telefoonka ka waco my parents waalidkay once a day maalinkiiba hal mar once waa hal mar a day waa maalinkii my parents ama parents waa waalidka callna waa waalid 14 I live waxaan ku noolahay near my cousin oo horey baan usoo baran waa ina adeer ama ina abti marka midka doontad baa dhihi kartaa I live waxaan ku noolahay near my cousin ina adeerkay ama ina abtigay meel u dhow ayaan ku noolahay so sidaa daraadeed we meet for coffee or tea waxaanu u kulanaa macnaha yacni isugu imaanaa cafe ama tea every week
أسبوع والبا معنا شهر سوود عبنا. So we meet for coffee or tea every week. سادرادت وحن أسبوع والبا شاه أما كافيه سوود عبنا. أسبوع والبا شاه يا كافيه بسوود عبنا. صوبت أو أسكدون. Alright. عشر كلمات أنت سكو إجيهاي آد بأمها سنتين داوشدينا فضلا هايلاون إنها سبسكرايب قرايسيد يوتيوبكم سيدو كلا لايك إيا شيرتنا على وداكتد هدي عشرك وكو قنعيي كومنتيغنا عكوسو قد وحي فالله يوحي أو باهنتين آد بأمها سنتين مرلوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.